sheegay qabaa'ilkii axmed gurey laga muxuu sheegi waay meel uu sheegay male marka axmed gurey lama yaqaan laakiin haddii caatifo la yiraahdo waxay dhahan mareexan waxay dhahan anagu naga soo jeeda waxay hadii naga soo jeeda ani abtisigeeda tusmeel ilaa axmed ibraahim al-ashwali ma arkin mareexan oo baabtirsan dad reer gari waxay yiraahdaan anagu naga soo jeeda axmed gurey waxay leeyahay xabashada waxay tahay axmed garanya la yiraahdo xabasha waay nanka macaan ku yiraahdaa afarta waxay dhahan nin walba aniga nin walba sheeganay marka liman allahu ya'lam ma lahay axmed gurey horta magacyada loo baxshay muxuu ahaa magaciisa runtaana maxay tahay magaciisa runtaa waxaa loo yaqaanay axmed bin ibraahim naynasiya marka raacday naynasiyadaas al-imaam لأنه ضدك وحكو هجي دينيا السلطان لأنه نمنك سلطنته وبحين شري عن شورته بوكسر حكمك السجا مركز السلطان نقضي السجا حتى سلطان رسمي نقض مقعد الوقع لو حكم ذها جري وقفك جران سيفتيسا بوح وقف سنشري جعنت بدحدة أفعل بيجنا هل هو كسوق نديب وقت الأشول وحوي قفك الأعصر الأشول وحوي قفك بدحدة استعماله powerful قرال أما ساس يعني وحا كم ذا مقعيديسا إثيوبيان كوحي يو بحصدين جران طبعا جوري بيكوضان أوكي صومالي مقع صومالي كسوقتين إيو الفاتح وحوي قفك فتوحات كإسلامية صمية كاسن عربتها أبحيي ولا السعودي إيو الغازي عثمانيين التركي ذا أبحيي مركوان ناين ناسيو لكن مقعيس أصلها أحمد بن إبراهيم بالي هذا فهمتين مركب حلقانيا الأمير السلطان الإمام أحمد بن إبراهيم جري الغازي الفاتح أصلاً عدويسا سيو أركي يعني عدويسا هدان أدنو برتقيسي ولدق علي أيضاً كبلابينا محيو قرنيا سيبو يعني ما أغاين من كان لدق عليا و very powerful إنو الصومالي أحا إلا الدعوة ضد كان هدا عن بروف مين كان حلقة فرانسيسكو الفريسي ومبعوث خاص كواه من إمبراطورية صدر سنين برتقيسك إلى إثيوبيانك يعني نينكاس وحيالا بدن بو قري انفورميشن بو كسو ألوغرينيي موفمنتك أما أكشن كو سميني أحمد قري واغو عصبا لما تنشري ميلها صحا دقالدي ugu horeysay oo la galay ma had dagaaladii waaweyna marka waxyaaluhu qoray wuxuu ka soo qaatay nimanka Itoobiyaanka ahaa oo asra ahaa oo kadib la soo furay yani مثلا waa la qafaashay niman baa loo kala bedeshay Itoobiyaanka marka wareysay ninkan maxaa information ka haysaa maxay dadkan sameynayaan waxay yiraahdeen Axmed Gurey iyo askartiisa waxay ku wada hadlaan af Soomaali ma ku hadlaan Arabi ma ku hadlaan Anfar ma ku hadlaan Amxaar taas marka Portugiisku way ogaayeen ninkan inuu ninka labaad waxa weeye João de Barros ninkan waa mu'arrikhyada waaweyn إمبراطورية Portugiiska leedahay dadka in sheegay xeebaha Soomaaliya yimaadeen ilaa dhinaca Itoobiya soo galay ninkan marka waqtiis waxa ku qornayd inuu militarigiisa okay badankeed waxay ka kooban yihiin askartiisa waa Soomaali waxaana ku jira qowmiyada kale laakiin waa dad yar askarta waxa ugu caansan buugiisa laga helaya ninkan Shawaawi waxa ah inuu yiri Ahmed Garan Heidos Somalis waa boqorka Soomaalida hadda Portugiis baan ku hadlayaa ninka saddexaad Portugiiska waxa weeye askari buu ahaa waxa weeye Michel de Castanosa ninkan waa ninka face to face arkayba labada nin kale askarta Itoobiyaanka iyo labada xabba Portugiiska ahaa bay information ka soo urursan ninkan dagaaladii buu Axmed Gurey uu la galay isbahaysiga Itoobiyaanka iyo Portugiiska waa ninka joogay oo ishiisa ku arkay طبعا shahaadad buu yani shaahid buu ahaa wuxuu qoray ninkan nimanka ugu dheer buu ahaa meesha Axmed Gurey Allah yarxamo awogeen oo طبعا wuxuu yiri ilaa wuxuu ahaa 6 feet okay يعني تقريبا waxay noqonaysaa maanta ada centimeter loo bedelo min 100 مثلا 63 ilaa 190 dheer buu ahaa wuxuu yiri oo kale wuxuu ahaa kalarkiisa kalar buniga sida kafeego kale ama qaxwada kale ku tilmaamay wuxuu waa kalarka Soomaalida nala dagaashay kalarkooda caadiga ah Axmed Gurey lahaa wuxuu ku tilmaamay kale nin inuu ahaa san dheer leh indhiisana indhin madow weeye oo xaad wuxuu noqdaa xaad yani
sidaas ku fiirinaya serious I don't know if Soomaali lagu sheego indhihiisana wuxuu eg tahay indhaha galleerku kale falcon yani very afraana keenayno waa mu'arikh weyn oo cilmi baarisa oo researcher Ethiopiana magaciisa waxaa la oran jiray Tekila Tasadik Mikroya inshallah magaciisa saxiir u dhawaaqay ninka todobaatanadii researchada waaweyn oo kusoo arooriyay historyga Abyssinia ama Ethiopia oo ninka sameeyay weeye dabcan uu dhintay buugaag badan buu marka qoray ka mid ah buugan buu marka wuxuu aad u falanqeeyay dagaaladii ay Soomaalida Salaadiinta ee la gashay boqortooyinka Imbaradoriyada Ethiopia ama Abyssinia wuxuu qoray Axmed Gurey waa Soomaali aniga Ethiopian hadda u noqonay waxa u bixinay Axmed Graan even qabiilkiisa hoose uu soo xiray oo way ogaayeen Ethiopianka ninkan uu yahay maca qabiilkiisa ilaa aniga Ethiopianka isku meelo waxa jirtay isla degaan Soomaha wala isgaranay aduu diriska kala dagaalay wad garanaysaa Soomaalida hadda hadda waad kala saari kartaa si ka soo iraahan Ethiopian waad kala saaraysaa masaahoba ma anfarba ma orama ma waxa weeye Tigray ma Baxarba ma okay areas dadka korkiisa dagaalada la soo geeyay wala isgaranay beeshan marka buuggiisa ku qoratay qofkii rabana dabcan iyadoo af amxaar way ku qoratay ayadiyo even af Ingiriis la tarjumayna way jirtaa matxafyada xataa waxay taala ama jaamacadaha Ethiopia Addis Ababa daraasaadka research ee laga sameeyay kamid tahay ninkaas yani aad baa yani loo xusaa qoraaladu qoray ama waxyaalaha interesting waxa weeye in mar walba buugaagta waxa ku xusan Axmed Gurey nimanka khaaska waa ama safka hore dagaalka gali jiray waxay ahaayeen magac marka waxa loo yaqaanay buugaagta Ingiriiska ama Portugiiska macariga ku qoran sida halka lagu qoray in dhigay waxa yiraahdaan malasi طبعا taas kelmad carabi maaha Ingiriis maaha waa kelmad Soomaaliya وكلمة Soomaaliga weeye oo مثلا marka qofku yiraahdo derbigaas iga soo malaas halkaas malaas yani soo xir ama soo dhamee laakiin kelmad Soomaaliya khaas weeye askartiisa marka khaaska oo maanta sida loo yaqaan maarinsiga ah oo bidixdiisa mar walba ahaan jiray طبعا boqolkiiba 90 waxay ahaayeen Soomaali inta kale qowmiyaday ahaayeen Arab iyo Xabashi ah marka waxa loo bixin jiray askartiisii askartii malaasa ayaga koow furinta koowaad gali jiray oo waxba soo malaasa horta halkaas laga hadlaya kelmadii even waa af waxa weeye af Soomaali marka awooga Axmed Gurey maanta waxa la isku haystaa qowmiyada kale lagu haysta absolute Soomaali qaarkood way isku haysataa horta number 1 dad Soomaali tahay waxa ogaataa qabyaalada maanta jirta wadankaaga ama goboladaada ama waxyaalaha fikriyan Soomaalida khaldan barigaas ma jirin okay Soomaalida xataa ilaa boqolkiisa lagu dambeysay qabiiladiistaas waa weyn oo hadda Soomaaliya saa ku burburtay ma ahayn Axmed Gurey baan kaaga sheekeynay Axmed Gurey ay leader caalamka jooga qabiil waxa kuma shaqeysto waa ilaa asal taariikhdu ma ku xasuuso haddaad qabiil isku soo xirtid oo jeelka qabiilka u gashid oo qabiilista noqotid askartiisi waxa ku jirtay Arab iyo Xabashi adi marka ma kala tahay hadduu qabiiladiista yahay ama qabiilkiisa kaliya xusayo inuu adduun hagi lahaa inuu caalam islaam difaaci lahaa inuu qabriga nabiga iska safe gareyn lahaa Portugiis Vatican iyo Yurub u soo heshiisay warawi qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam la baxan jirkiisa inay madxafyada dhigtaan Vatican oo kala doodaan caalam islaam qudus ha laga baxo ninka dhan safe gareey weeye ninkaas marka sharaf weeye ummado badan marka way sheeganaysaa adigana maanta Soomaalida way ka tirtirtay dawlad ba haysatid ama urur xoog badan difaacada taariikhda ama ku sheegta because waxaan kale xirtaa cilmi baaris weyn okay history-gana waa la hayaa history-gana waa isqariso hawshana la socda